meel gaar ah oo Ibrahim Maxamed Golandi oo ninka Tahrir Sham ninka hogaaminay marka isbedel fiican ayaa Syria ka dhacay waxaad u qabtaa dalalkii ku foolanaa isbedelkaasi oo Turkiga kamid aha oo Mareykanku kamid aha oo dhanka kale yaani qolooyinkan Israa'iiliyiintu iyakuna inay duqeymo meelaha qaar kood maalmihii koobaad ay ka geysteen marka Syria xaaladeedu hadda waa degan tahay isbedel weyn ayaana ka dhacay waan gartay وسيلة شيكتي أو نلاش ويسول لعبتي أو دول مادية ديارته أي ربرو يشقينيان دولة دو يشقينيسا إن كستول اللي هي حتى وحابد بعد أنت كلا ياب كإدو هاي إن لعق أنت سو مليون أو دولار أو تاليبان جد هاي سوريا إن ذهب يدور سوق جرتي إن الله تعبان أنا سو حيابها أنت بدن إنه كحدا حكم كقبستي لو أمانة يقاب كإشعاب كي حرمه دولة أوبد باديين إن عكلا مركان إجنو وحاجرو sida ka dhawaajisaba Israa'iil inay duqeymo ay ka fulisay inta badan ee garoomada iyo xarumaha militariga oo ay sheegtay in 90% ay soo burburisay ama ay naafaysay awoodii Syria ee dhanka difaaca cirka iyo ciidamada arintaas markaad fiirisay dhulka ay qabsatay oo la leeyahay waxa kamid ah meelihii markii hore muranka ka jiray oo ciidamada ka caaganay in hadda ay ku sii siqayso runtii Israa'iil markastaba waxay u qabtaan Syria inay qatar ku soo food leedahay u maleeday maxaa yeelay kooxaha qabsaday ee Tahrir Sham Mareykanku waxa uu sheegay inay yihiin kooxihii argagixisada oo ninkan Maxamed Golan oo hogaamiyay kooxdan ayaa horay lacag 10 milyan ayaa madaxiisa loo dul dhigay marka waxayna ka cabsanaysay maadaama Bashar al-Assad laga saar xukunkiisii in kooxahani hubkaasi ay Israa'iil la soo aadaan sidaas daraadeed ay rabtay inay ku baabi'iso waxayna duqeymisay garoomaha diyaaradaha meelaha saldhigyada militariga xogtaasina waa xog sirdoon oo Israa'iil heshay marka Israa'iil waxay ka carareen in hubkan culayska ah oo Ruushku uga tagay Turkiga Ruushku uga tagay Syria in kooxahan islaamiyiinta iyo kooxaha kale inay la soo aadaan dalkeeda marka qatar ay sida la qiyaasay uga hortagaysa in hubkaasi baabi'iso waana arin macquul ah oo inta badan kooxahan inkastoo Turkiga uu leeyahay kooxahan islaamiyiinta waa kooxo aan ma yal adkeen oo qoyar socda haddana xaaladooda mustaqbalkooda lama saadaali karo dhinaca kale markaan eegno Mareykanka dhawaan waxa uu sheegay ama Trump uu had laftigiis wareysi ugu horeeyay oo bixiyay markii la doortay kadib oo telefishinka ABC News ee dalka Mareykanka uu waxa uu sheegay in maskaxda iyo awoodda in kooxahan inay ahayd maskax ka dambeysay Turkiga oo Erdogan uu yiri siyaasadii Syria ku guuleystay inkastoo hakaan fidaan oo dhawaan hadlay shalay Arbacada ahayd doorada aan iraade waxa uu sheegay in gabi haamba in aysan jirin isagashada Mareykanka iyo Trump uu beeniyo oo san dhexaad uu ka yahay Turkigu marka fiiriso saameynta hadalkii Trump ee la xiriirtay in Turkigu uu ku awood roonaaday Syria adii ma la qabtaa mise waxaad qabtaa in arintaasi dhexaad ka tahay Turkiga runtii Turkigu dhexaad kama ahan waxaad u qabtaa Turkigu inuu dhankaas Trump saaxiibo dhow yihiin markii dib loo doorto waxaad u qabtaa inuu dardarka dagaalka xilliga uu qaaday Erdogan iyo tiimkiisa waxay ahayd xilliga dib loo doortay madaxweyne Donald Trump oo ay saaxiibo leeyihiin Recep Tayyip Erdogan marka Turkiga wuxuu eegayaa danihiisa amniga ayaa qatar ku jiray maxaa yeelay wadanka ugu dheer ee xuduudda la wadaago Syria waxay ahaayeen Turkiguna waa wadan sunni ah dadka sunniyiinta ah ee ku nool waqooyiga Syriana waxay ahaayeen dadka ugu badan ee la cadaabayay oo dhibaatooyinka 7 milyan oo muslim ah ayaa xuduudda Turkiga ka gudbay taasina dhibaato dhaqaale ay ku abuurtay wadanka Turkiga taasina waxay sababtay inuu Turkiga ciidamadiisii 2 sano ka hor oo xuduudda Turkiga iyo Iran iyo Israa'iil Turkiga iyo Syria inuu keeno taasina waxay sababtay inuu heshiisyadii iyo wixii qaabka wax loo rabay markasta Bashar al-Assad wuxuu dhahayay ciidamada Turkiga ee waqooyiga Syria jooga laga saaro isaguna wuxuu dhahayay amniga dalkiga ayaa khatar ku jira marka dagaalkaasi waxa ku raayay Turkiga Mareykankuna wuxuu gabaad siinayay Turkiga waxa rabay Bashar al-Assad inuu meesha laga saaro inkastoo Mareykanku cabsi u dareemayo oo kooxahan hadda xukunka qabsaday wali mustaqbalkooda aan la saadaali karin oo inta badan kooxihii Syria ka dagaalamay kooxaha islaamiyiinta waxay reer galbeed ku tilmaamaan inay jaal ahaayeen laakiin Turkigu wuxuu aaminsan yahay inay kooxahan yihiin sida Talibankii Afghanistan oo si nabad xukunka kula wareegayeen oo aysan doonin wadan kale inay weeraraan ama wadan kale inay dhibaato ka geystaan waan gartay dhinaca kale markaan eegno isla arrimaha Mareykanka waxa dadka qaar ay leeyihiin maadaama Trump oo la ogyahay nin aad dunida ugu baqaysay dagaaladan socday waxyaabahan oo go'aan degdeg ah gaaro intuusan xukunka imaan oo 20ka bisha soo aadan la wareegi doon aqalka cad waxa leeyahay waxa la soo afjaray waxyaabo badan dunida ka jirtay tusaale kale khilaaf ku dhaxeeyay Hezbollah iyo heshiis laga gaaray Israa'iil arinta Syria waa lagu kala baxay waxaad muddo Ukraine aftegeeda in hadda ay awood ay ku qabsanayso dhul weyn oo Ruushka ah
marka fiiriso cabsida laga qabo Trump maxay tahay oo hadda la sii xalinayo dhibaatooyin badan oo caalamka hore ugu jiray runtii Trump waa nin dhaqaale nin dagaalna waayahay markii